ورحمة الله وبركاته دمان شعب كنا داوانا يكسر دوادة برنامجك مسير كومدة أو إيمانتا مرتين نويين dadkii culcuslaa maasha allah mudane madaxweyne cabdullaahi xasan iyo mudane dr dolaal xalxaal mudanayaal ku soo dhawaado si sharaf leh dhab tv mar kale aad baan u dhownahay waa dadkana waa salaamaynaa bahda dhab tvna waan salaamaynaa mahadsantihiin labadiinaba waxaa la yidhahdaa arrintu markay ay qaraaraato waxaa la raadsadaa raggii fardaamin lahaa odayaashii deegaanka ayaa tihiin siyaasiyiintii waxgaradkii dadkii looga dambeeyey mataqaanaa taariikhda iyo waxyaabo badan maanta xaaladan gaarka noo ah ee ah gaaskan deegaankeena laga helay ama warshadan dadka oo dhan ay ku anfariireen ayaan rabaa marka horeeto inaan ka ogaado saad u aragtaan arrintan ma soo dhaweynaysaan ma ka dhidhinaysaan waraysiyo aad bixisayna waan dr dolaal adaan kugu bilaabaya seed u aragtaa marka ugu horeysa xaaladan nagu soo biirtay waqtigan xaadirka بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijkan haddaan u gudbo su-aashaada shidaal baadhista deegaankeenu wax cusub maaha aniga odayga ah waqtigaan dhashay ka hor bay jirtay waddooyin badan oo la yidhaah waddooyin qoraalada oo shirkadihii hore ee Mareykanka ee Singler iyo ay wada sameeyeen baa jira shidaalkaasna meelo badan baa lagu tilmaamaa inuu ku jiro kan hadda dadkeenu ku anfafireen kulley anigu dadkaa kuma jiro markaan Soomaaliya joognayna dowladdii Itoobiya ee dergigii way baadhaysay ama shidaalka ogaadeen basin ee dooxada ogaadeen laga baadhayay ha ahaado ama biyo xidheenkii miraab ingoday ha ahaadee labadaba dowladdii Soomaaliyeed way diidanayd in wax laga qabto deegaankeenu markii uu dhashay 93 waxaanu la kowsanay isaga oo shidaalkani baadhistiisu socoto oo dowladdii midowga Soviyeeti ama dowladdii Ruushku ay markaa ay aaga degan tahay